halkan waa magaalada Berbera oo ah mid ka mid ah deegaanada ugu qadiimsan guud ahaan deegaanada Soomaalida sidoo kalena leh taariikho kala duwan. Berbera ayaa ah magaalo ay soo xukumeen dawlado waaweyn oo mar xukunkoodu uu gaadhay dunida badankeeda sida boqortooyada Cusmaaniyiinta iyo boqortooyada Ingiriiska iyo sidoo kale Masaarida oo mar la sheegay inay joogeen Berbera. haddaba waxa aan maanta booqday masjidkan oo ku yaala bartamaha magaalada Berbera oo ah mid taariikhi ah laguna magacaabo masjidka Turkida. Masjidkan ayaa waxa la dhisay sanadkii 1840 waxaana dhismihiisu dhamaaday 1850 iyadoo masjidkan ay dhistay Cusmaaniyiintii waqtigaasi ka talin jirtay guud ahaan deegaanada gaar ahaan gobolka Saaxil. waxaana taasi micnaheedu tahay in masjidkan uu dhisnaa 127 waxyaabaha cajiibka soo jeedana waxaa ka mid ah minbarkan oo halka laga khudbadeeyo in uu ku yaalay masjidka in ka badan 127 sano haatan ilaa marka la dhisay welina waa sidii hadda waxaan fadhinaa gudaha masjidka dhexdiisa ayaan fadhinaa. waxyaabaha cajiibka intuu soo jeedana waxaa ka mid ah sida quruxda badan ee masjidkan loo dhisay oo ay ka muuqato farshaxanimo weyn walow la dhisay in ka badan 127 sano ka hor. waxaa isweydiin mudan xilligaasi halka uu gaarsiisnaa farshaxanimada iyo habdhiska Turkidii mar waqtigaasi dhistay masaajidka. sidoo kale baalaha halkan ka muuqda ee haatan aad arkaysaan ayaa iyadoo waxa ay yihiin habkii loo adeegsan jiray in lagu suro gulubyadii leyrka ee waqtigaasi la isticmaali jiray maadaama waqtigu aad u fogaa oo ay adkayd in la helo leyrarka iyo tiknoolajiyada haatan la isticmaalo. halkan ayaa waxa ahayd goobihii la sugi jiray leyrka si dadku ay ugu tukadaan masaajidka waqtiyada habeenkii oo mugdi aan u dareemin. waxaa kaloo xusid mudan in masjidkan uu yahay mid aad u qabo markaad gudihiisa ku dhex jirto maadaama gobolka Saaxil iyo guud ahaan magaalada Berbera ay tahay goob ku agtaalla bad isla markaasina kuleylku uu badan yahay laakiin masaajidkan runtii gudihiisu aad buu qabo yahay. arrintan ayaa markii aan weydiiyey dadka maamulka masjidka iyo sidoo kale dadka ku tukada waxa ay sheegeen in qaabka loo dhisay uu yahay qaab ka duwan maadaama xagga sare wada arkaysaan haatan ay ka duwan tahay dhammaanba sida loo sameeyo masaajidada kale oo xagga sare uu saaran yahay qori loogu talagalay inuu qaboojiyo masaajid. halkan ka soo daadegana waa minaaradii masjidka oo iyaduna ah mid aad u qurux badan run ahaantiina alaabta laga sameeyay iyo waxaweye dhagxaanta laga sameeyay ay yihiin kuwa aad u adag una sii saamixi kara muddooyin fara badan inuu sii jiro masjidkan Cusmaaniyiinta ee ku yaala bartamaha magaalada Berbera ayaa sidoo kale waxa uu yahay goob dalxiis oo soo jiidata dalxiisayaasha imaada gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera. dalxiisayaasha imaada masjidkan ayaa la yaabaa arrintan waxa ka mid ah oo aad ay la yaabaan taariikhda masaajidku jiray iyo xilliga engineering shaqeynayay iyo nidaamka xilliga wax loo dhisay marka waxay aad loo soo jiitaan sida albaabadan imika intan la leeg looxan muxuu ahaayay astaamahan ama aasaarahan taariikhda la isticmaali jiray oo aan imika haba yaraatee la soo helay. masjidkan Turkida ayaa ah mid taariikhi ah oo ku yaala magaalada Berbera isla markaasina ah mid si weyn aad ula yaabayso qaabka loo dhisay oo aad muddo markaad gudaha u gasho mid cusub oo si qurux leh loo nashqadeeyay. kooxna waa Ayuub Show lana soco muuqaal cusub.